aad buu u farxay. farxad aanu dadka kale tusin oon dadka kale ka helin ayuu iyada ka helay. inantii way soo baxday, waxay tagtay Turkiga, gaar ahaan caasimadiisa Ankara. xaggaas markii muddo joogtay, muddo ka wada hadlayeen xaggaas ee muddo sideedii xiisahoodii wateen, heer waxay gaadheen ay iska dul ooyaan. toddobaadadii markii lasoo dhaafay inantii Ankara timi ee Ankara joogtay, heer bay gaadheen ay iska dul ooyaan farxad awgeed iyo kala gacayl laysku qabo awgeed waa la iska dul ooyi jiray. waxay sidaa la ahaado, haddaba waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inay inantii waalidkeed la hadlaan. waxay ku yidhahdeen dib u soo laabo Turkiga, meelaad ugu sii socotaa ma jirtee, dib u soo laabo, Hargeysa ku soo laabo. inantii way moraal jabtay, si walba waxay ugu sheegtay hooyo ma soo noqon karayo, hooyo ii daaya, aabbi sidaan ma ii bada weli. inantii way u qaadan weyda waxaa dhacaya. waalidkeed waxay ku yidhaahdeen duco iyo habaar mid kala qaado, duco iyo habaar mid dooro, ama ducada qaado soo noqo, ama habaarka qaado iska joog xaggaaga. inantii dhulka la wareegay, ciriiri bay ku noqotay adduunyadii. weliba waxaa loo sheegay markaad soo noqoto ina wiil laguu dhisayo, wiil ina laguu dhisayo oo lagu guurinayo, niyaddana u sheeg. wiilka loo guurinaya waa wiil jooga Belgium ee qaaradda Yurub. waa wiil lacag ilaahay ku manaystay, waa wiil xaafaddaas isfahansiiyey, issoo dhexgeliyey. inantii wiilkaas ayaa lala rabaa. waxay garan weyday si ay ugu sheegto jacaylkeedii, waayo waxay rajaynaysaa farxad ah inay ag tegi doonto jacaylkeeda. sidoo kale wiilka isjecel yihiin wuxuu rajaynayay farxad ah inay ag iman doonto jacaylkiisu. waxay sidaa ahaato, inantii wiilkii waxay go'aansatay inay sheekadii ama qisada u sheegto. waxay ku tiri saasaa jirta, waalidkayga wuxuu igu yidhi duco ama habaar mid dooro, waan noqonayaa. halkii ha la moraal jabo, halkii ha la wada walaaco, halkii ha la wada ilmeeyo. nafta waxa sareediyo wahaasadiyo guur, sawirkaaga qudhoon dhayhayga saare, sawirkaaga qudhoon dhayhayga saare. gabadhii aakhiritaan inantii dib bay ugu soo noqotay Hargeysa. markii Hargeysa ku soo noqotay, aakhiritaan waxaa dhacday inuu wiilkii isaguna Jarmalka joogay intan ay jacaylka lahaayeen inuu halkii xanuuna ka qaado. wuxuu noqday qof keligii socda, wuxuu noqday qof aan dadka kala xiisayn, way farxad guuray. inantani ma aha inan iyadu ciishay inanka, balse wakhtiga iyo waayaha ayaa kala kaxeeyey. wiilkii lahaatada wakhtiga kama saaro jacaylkiisii, mar walba niyaddu ku hayaa, mar walba niyaddu uga rajaynayaa, farxad buu niyadda ugu hayaa. farxad aanu cid kale u hayn ayuu iyada u hayaa. balse inantii halkii ay ku dambaysay muusan qisada ku xusin. halkaas ayay qisadiina ay ku joogtaa.